guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab gaar ahaan ururada 4aad 7aad iyo sidoo kale horinta gawaarida gaashaaman ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaana howlgaladan qasaare xoog leh lagu gaarsiiyay argagixisada baxsadka ah. goobaha ay ciidanku danab howlgalada ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah Toorotoro, Mubarak, Dar es Salaam, Farsooley, Tawakal, Shaam Garre, Nuun Garre, Yimbish iyo deegaano kale. 13 dhagar qabe oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgaladan waxaana lagu burburiyay saldhigyo ay lahaayeen cadowga iyo maxkamad beenaadyo dadka shacabka lagu baadi jiray iyadoo sidoo kale ciidanka danab ay qabteen gaari hoomi ah oo ay adeegsan jireen nabadiidka. sidoo kale howlgaladan waxaa lagu soo qabtay 3 dhagar qabe oo ka tirsan argagixisada waxaana ciidanka kumaandooska danab ay ku raad joogaan firxadka cadowga ee ka carray deegaanada ay howlgalku ka fuliyeen kumaandooska danab. taliyaha ururka 7aad ee guutada 16aad kumaandooska danab gaashaanle Xasan Maxamuud Cismaan Xasan Tuure oo howlgaladan hogaaminaya ayaa warbaahinta codka ciidamada qalabka sida uu xaqiijiyay in argagixisada la gaarsiiyay jab culus lana burburiyo xarumo dhowr ah oo gabaad u ahaa kooxda Al-Shabaab isagoo xuseynay soo dhaweyn wanaagsan ay kala kulmeen shacabka ku nool deegaanada howlgalada qorsheysan ay ka fuliyeen. ciidanka kumaandooska danab ayaa kordhiyay howlgalada qorsheysan ee lagu beegsanaya argagixisada waxaana marar badan ay ku guuleysteen ciidanka danab inay burburiyaan gawaari qaraxyo laga soo buuxiyo oo Al-Shabaab ay doonayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed. Cabdifataax Cabduqaadir Aqyaar, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida gobolka Shabeellaha Hoose.